subax wanaagsan khiyaarteena kusoo dhawaada tabin kale iyo sheekooyinkii ugu waaweynaa xiisada bariga dhexe iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi Iran iyo waliba Israel. duqeymihii ugu dambeeyey gantaalo roob looga dhigay magaalooyin ay ka mid tahay Tel Aviv iyo kuwo kale oo ku yaala dhulka la haysto ee Falastiin. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi oo si adag ugu hanjabay Israel iyo waliba hadalkiisii diblomaasiyadda lahaa iyo hadalkii uu jeediyay xalay toole madaxweynaha dalka Mareykanka Trump. Israel oo gabaabsi uu ka yahay nidaamka difaaca cirka iyo waliba gantaalkii yaabka lahaa ee markaasi baan lagu duqeeyay Tel Aviv oo ay soo bandhigtay Iran iyo duqeymihii ugu dambeeyay ee qaybka wararkii ugu waaweynaa ayaan sidoo kale diradda saari doonaa ee bariga dhexe. soo dhawaada channelka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saaro si share garee muuqaalka. subax wanaagsan aanu ku bilownay. ilwareedyo ka imanaya Israel ayaa waxay ku waramayaan in gantaalo dhowr ay ku dhaceen magaalooyin ay ka mid tahay Tel Aviv sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. meelo badan oo ka mid ah Israel ayaa loo qaybiyay gantaalo taas oo ka dambeysay kadib markii Iraaniyiintu ay soo tuureen gantaaladaasi. wararka haatan ka imanaya Israel ayaa waxay ku waramayaan in dhowr deegaan oo ka mid ah Israel laga maqlay qaraxyo taasina waxay ka dambeysay kadib markii gantaaladii ay soo tuureen ay awoodi waayeen nidaamka difaaca cirka Israel inay celiyaan ama ay markaasi burburiyaan. idaacadda Israel iyadu inay sheegtay in markii hore weerarku ku bilowday diyaarado aan duuliye lahayn. laba ka mid ayaa la sheegay in xeefad dusheeda laga hortagay oo uu awooday nidaamka difaaca cirka taasoo ay sheegeen idaacadda afka Israel ku hadlaysan ay ku warantay in laga hortagay. laakiin haddana muujado sawaariikh Iraaniyiin ayaa lagu soo waramaya Iraaniyiintu inay ku tuureen Israel. ciidamada ayaa sidoo kale waxay sheegeen meelo badan oo ka mid ah Israel in lagu weeraray. wararka waxay intaa ku darayaan Tel Aviv taweyn iyo waliba kuwo kale in laga maqlay qaraxyo dhowra. jiriirada caanka iyo diicooda xaranood ayaa waxay sheegaysaa in bilowga ilaa 5 sawaariikh ay ku dhacday meelo badan oo ka mid ah waqooyiga ilaa iyo markaa bartamaha magaalada Tel Aviv. telefishinka 12aad Israel ayaa waxa isaguna uu sheegay in la arkay qiiq iyo waliba dab holac ka baxaya dhismooyin ku yaala magaalada Tel Aviv kuwaas oo ay ku dhaceen gantaalo. ma jirto faahfaahin dheeraad oo la helay laakiin wararka ayaa waxay ku waramayaan lagana daawanayo telefishinada muuqaalo laga soo duubay isla markaana dadweynaha halkaas iyagu ay gudbiyeen. waxaana la arkay guryo halkaasi ku yaala oo qiiqii holac uu ka baxayo kadib markii ay asiibeen oo ku dhaceen gantaaladii ay soo tuurtay dowladda Iran. geesta kale diyaaradaha dagaalka Israa'iiliyiintu ayaa sidoo kale la tilmaamaya in meelo badan oo ku yaala Iran iyagu inay duqeeyeen. nidaamka difaaca cirka ee Iran ayaa markaasi dhawaqiisa laga maqlay magaalada Isfahan taasina waxay ka dambeysay kadib markii halkaas ay ku dhaceen gantaalo sidoo kale waxaa la sheegay inay jireen diyaarado aan duuliye lahayn kuwaasoo lagu weeraray mas-uuliyiin iyo xubno la tuhmayo inay ka tirsanyihiin dowladda Iran. waxaana la aaminsan yahay diyaaradahaasi inay ahaayeen kuwa laga soo dhex tuuray gudaha dalkaasi Iran. Iran ayaa waxaa si weyn halkaasi ugu sugan isla markaana ka dhex dagaalamaya oo si dhuumaalaysi iyagu diyaarado iyo waliba markaa qaraxyo uga sameynaya dad basaasiin oo Israel isla markaana sirdoonkoodu ay awoodeen gudaha inay geliyaan halkaasi taas oo fududeeyay in weerarada ay dhacaan isla markaana la dilo hogaamiyaal dhowra. Iran oo iyaduna ka careysan falalkaasi ayaa waxay ahaayeen dhowrkii cisho la soo dhaafay ciidamadooda cirka iyo waliba nidaamkooda sawaariikhda in iyo gantaalo ay ku tuurayeen gudaha dhulka la haysto ee Falastiin iyo waliba Israel. saaka ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi ayaa waxay ku warameen ilaa iyo 18 goobood la beegsaday waxaana ku jira goobaha sawaariikhda lagu beegsaday garoonka Ben Gurion ee ku yaala magaalada Tel Aviv. wararku waxay tilmaamayaan in weerarku uu ku bilowday sawaariikh nooca balastiga iyo waliba markaa diyaarado aan duuliye lahayn ee loo yaqaano nooca Shaahid 136 waana mid ka mid ah kuwa ugu casrisan ee dowladda Iran ay soo saarto iyadoo la ogyahay in xitaa Ruushku uu ka qaatay isla markaana uu adeegsanaya dagaalka dalkaasi Ukraine uu kula jiray. wararku waxay tilmaamayaan sidoo kale
Wall Street Journal ayaa waxay sheegtay diblomaasiyiin ka tirsan reer galbeedka in si toosa Tehran ay u gaarsiisay in qorshaheedu aysan u ahayn in hoos ay u dhigto uraniumta maadaama damaanad aysan haysan isla markaana cabsi ay ka qabto haddii hubka iyo weliba waxaa awoodoodu tahay ee iyagu markaasi ay dhiibaan in khatar kale ay la kulmi karaan oo markasta lasoo weerari karo. Fox News ayaa sidoo kale waxay sheegtay Israel haatan inay daraasanayso in commandoskooduba ay ku degdaan gaar ahaan goobta la yiraahdo Fordo, halkaas oo markaa la tilmaamayo in suurtagal ay tahay ciidamo commandos inay u diyaariso howlgalna halka ay ka fuliyaan. laakiin ciyaarta halkaasi kama fududa sababtoo ah waxaa la tilmaamaya ilaa iyo 800 oo mitir in dhulka markaasi hoos ugu jiro ama u qodan yahay, taasoo xitaa ay adkaanayso gantaalka ugu dheer oo dowladda Mareykanka ay haysato isla markaana ay xambaari karto diyaaradda B-52 iyo B-2, taas oo labaduba ay ku adkaanayso in mar qura gantaalo ay ku dhuftaan. waxaana leeyahay gantaalka awoodiisu ilaa 60 markaa mitir inuu jari karo dhulka u qodi karo maadaama dhowr boqol oo mitir oo kale hoos ay usii qodan tahay. wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa laga soo warinayaa in isagu uu sheegay 2 toddobaad inay haysato dowladda Iran oo ay tahay in caqligeedu u soo noqdo sida hadalka uu isagu dhigay. madaxweynaha oo isagu warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu isagu sheegay waqti uu ka deganayo garoonka diyaaradaha magaalada Morristown ee gobolka New Jersey. waxa uu yiri Israel si wanaagsan ay ugu guuleysatay dhinaca militariga iyo howlgalkeeda. Iran way sii leecaysaa mana arko waddo lagu joojin karo dagaalka. way adag tahay in la dalbado Israel in la joojiyo ama ay joojiso duqeymaha cirka. isagoo intaasi ku daray in Iran haatan ay dhibaataysan tahay mana aqaano sida dagaalka loo joojin karo ayuu yiri. si kastaba haatee wuxuu qiray Israel inaysan awoodin inay burburiso dhammaan xarumaha nukliyeerka, taasoo cabsi markaa ama arrin miisaankeeda leh uu isagu yahay. Trump ayaa waxa uu isagu sheegay sidoo kale in aad ay u qaldanayd madaxa sirdoonka dowladdiisa, gaar ahaan gabadha la yiraahdo Tulsi Gabbard, gabadhaas oo iyadu sheegtay in Iran aysan haysan amaba aysan u socon xitaa inay samaysato hubka wax gumaada ee nukliyeerka. geesta kale wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi oo isagu ka hadlayay howlgalka diblomaasiyadeed ee uu hogaaminayo dowladdiisa ay doonayso in lagu baajiyo weerar dalkiisa lagu soo qaado. waraysi uu siiyay telefishinka NBC ee dalka Mareykanka laga leeyahay waxa uu yiri Washington haddii ay doonayso diblomaasiyadda isla markaana dhab ay ka tahay anagu markii hore waanu kula jirnay ayuu yiri. markii xitaa ayna soo weeraraysa Israel wadahadal ayaa socday. haddii ay doonayaan waa inay la xiriiraan Israel isla markaana weerarada ay joojiyaan. Iran qorshaheedu diblomaasiyadeed waa u cad yahay, laakiin dowladda Mareykanka iyada dabool u ahayd weerarka ay ku soo qaaday dowladda Iran ayuu isagu yiri. waxaana sidoo kale uu tilmaamayaa in Iran iyadu markaasi ay diyaar u tahay wadahadalka, laakiin wuxuu yiri suurtagal maaha wadahadal inaan ku soo noqono ama dariiqada diblomaasiyadda iyadoo dagaalada ay soconayaan. waxa waajiba in dagaalada la joojiyo kadibna ay noqoto mid laga wada hadli karo waxa dhacay iyo waliba sida nabad loo heli karo. lama garanayo tanaasulka ay sameyn karto dowladda Iran, laakiin haddana waan ogaan doonaa maalmaha soo aadan, taasoo la sheegayo shirin loo ballansan yahay. wararkii ugu dambeeyay Wall Street Journal ayaa waxay ku waramaysaa Mareykanka haatan mas'uul laga soo xigtay inuu sheegayo nidaamka difaaca cirka, taasoo la sheegayo dowladda ama nidaamka Israa'iiliyiintu in haatan gabaabsi uu ka sii noqonayo. Israel ayaa waxay ugu talagashay inay uga hortagto nidaamka casriga ee Arrow 3 iyo kuwa kale oo casri ah inay ku soo rido ama ay kaga hortagto gantaalada casriga ee dowladda Iran ay ku beegsanayso goobaha istiraatiijiga ee Israel ku yaala. inkastoo ciidamada Israa'iiliyiintu si rasmi aysan u shaacin tirada gantaalada ay soo rideen ama xitaa kuwa lagu soo tuuray, haddana warbixino Mareykan ayaa waxay ku waramayaan isticmaal xad dhaaf oo toddobaadkii hore ay sameeyeen Israel inay ku adag tahay haatan inay sii wadaan ka hortagga gantaalada ay soo tuurayso Iran, gaar ahaan nidaamyada casriga ee Arrow 3, Heads 2 iyo waliba iyo nidaamka caanka ee gaashaanka birta. mas-uul Mareykan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Israel ay ku adag tahay haatan inay sii dagaalanto oo gantaalada ay soo ridaan sababo ku aadan ay gabaabsi yihiin oo ay sii yaraanayaan oo ay daaleen nidaamkeeda difaaca cirka. guud ahaan tabinteena waa naga intaa daawadayaal, fadlan channelka subscribe saaro, sii share gare. mahadsanidin.